kulanti wanaagsan saaxiibayaal soo dhawaada waxaan maqaalkan ku dul istaagi doonaa xogihii ugu dambeeyey howlgallada la dagaalanka khawaarijta caalamiga ee ciidamada Puntland ay ka wadaan buuraleyda gobolka Bari iyo xogihii ugu dambeeyey ee ka soo kordhay laamaha amniga ee magaalada Boosaaso ayaa shaaciyay inay gacanta ku dhigeen 8 xubnood oo 6 kamid ah ajaanib yihiin kuwaas oo la shaqeynayay ninkii habeen hore la toogtay ajanabiga ahaa ee bartamaha magaalada Boosaaso lagu toogtay isagoo miino ku aasaya wadada weyn ee halbowlaha oo magaalada Boosaaso lama amnigu waxay sheegeen 8 xubnood inay gacanta ku hayaan 6 kamid ah ajaanib yihiin labana ay Soomaali yihiin ninkan ay la shaqeynayeen 8daas xubnood waan dul istaagi doonaa dhinaca kale to lamaha amniga ee gobolka Bari waxa ay sheegeen in 100 qof oo laga shakisan yahay iyagana ay howlgalkaasi ku soo qabteen 100 kaana baaritaan oo ku socdo lama kala cadaynin 100 ka qof inay kooxda si toos ah ula shaqeynayeen iyo inay la shaqeynayeen baaritaanna ku socda howlgalkan marka buuraleyda ka socda magaalooyinka gobolka Barina waa ka socda oo laamaha amniga gaar ahaan waliba ciidanka boolisku iyo CID oo iskaashanaya waxa ay soo qabanayaan dhinac walba ama qof walba oo looga shakiyo inay la shaqeyn lahaayeen kooxaha sababtoo kooxahan buuraha ka dagaalamaya magaaladana dad baa u joogay qaar lacag ururiyo qaar siraha u soo sheego qaar xogaha u soo sheego qaar dadka u soo handado qaar xogta dawladda bixiya marka baashu way isdhax fadhiday gobolka Bari oo dhan bay isdhax fadhiday howlgallada halkaas ka socda waan dul istaagi doonaa howlgalladan iyo sida ay u socdaan iyo guulaha ciidamadu ay gaareen waan si fiican baan ugu faahfaahineynaa muuqaalka qaybtiisa hore dhinaca kale dawladda federaalka wali toosh baa ku shidan in la soo celceliyana way mudan tahay dawladda federaalka iyo waliba howlgalka midowga Afrika ee la dagaalanka khawaarijta Soomaaliya malaayiinta dollar ku qaata oo ilaa iyo hadda wax doora iyo wax hadala iyo wax wara iyo wax muudatoona aan ka qaadanin howlgalka Puntland ay kula jirto argagixisada caalamiga dawladda federaalka waa u aamustay oo Puntland way u aamustay howlgalka Puntland bay ku kali tahay tiri haddii dawladda federaalka ay aamustay howlgalkii ATMIS ama UNISOM ee argagixisan la dagaalamayna Soomaaliya u joogay maxay tahay sababta uga aamusan yihiin maxay tahay sababta uga hadli laayihiin maxay tahay sababta door uga qaadan laayihiin maxay tahay sababta diyaaradahooda uga qayb qaadan laayihiin arrin la yaab la meesha ka taagan oo Soomaali inay ku kala tagto sababi karta oo Puntland ayadana ay gooni Soomaaliland ba markii hore la laaye ay tiraahdo gooni istaag anagana dawlad madax banaan baa tahay ayaa halka ka soo socota waan iftiiminayna iyadana soo dhawaada muuqaalka la igsaara fogeeya beeldeerka tuura aynu ku bilownay laamaha amniga ee magaalada Boosaaso ayaa shaaciyay inay gacanta ku soo dhigeen 8 xubnood oo 6 kamid ah ajaanib yihiin kuwaas oo la shaqeynayay nin habeen hore ay laamaha amniga magaalada Boosaaso ay ku dhex toogteen gudaha magaalada xilli uu miino iyo qaraxyo ku xabaalahayay aaga hotel Nakhiil oo ah aag saxmad badan bulsho badan oo reer Puntland ay ku ganacsadaan ku nool yihiin aag hotelo tabaqyo ah iyo sidoo kale to dukaamo waaweyn ay ku yaalaan iyo waliba maqaaxiyo ay ku yaalaan ninkaas shacabka soo sheegay muuqaalkii hore hadduu ku dhaafay xogtiisa in yar baan iga daba geynayaaye shacabka u soo sheegay laamaha amniga kadib markii soo wargeliyeenna laamihii amniga way dhaqsaba way ku imaadeen markay ninkii ku soo dhaw arkay inay ciidamadii ay ku soo dhaw yihiin inuu baxsado isku dayay kadibna ciidanku waa toogteen qaraxyadii iyo balaadii uu watayna sidii baa lagu fashiliyay ninkii markiiba la toogtay laamaha amnigu waxay ku bixeen halku magaalada ka deganaa waxaa la soo qabtay nin la deganaa oo la soconayay oo ninkan waliba nin magaalada laga yaqaan uu hayo tusbaxyo iyo cadaro ayuu wareejin jiray oo gaari gacan ku wareejin jiray magaalada dhexdeeda marka nin la soconayay ayaa gacanta lagu soo dhigay gurigii ay deganaayeen qaraxyo iyo bambaanooyin miinooyin hub sida bastoolado adduun baa laga soo qabtay meesha ay rabeen inay shacabka ku dhibaateeyaan howlgalkii marka waa sii socday 8 xubnood oo ninka la soo qabtay uu ka mid yahay ayay laamaha amnigu shaaciyeen inay gacanta ku hayaan 8 xubnood 6 kamid waa ajaanib hal laba nin baa Soomaaliya 6 kamid 8 hadda nool gacanta lagu hayo 6 kamid ajaanib weey
waxay la shaqaynayeen kolley ninkii la qabtay baa sheegay oo xogta bixiyey 8diiba gacanta lagu soo dhigay labadii Soomaalida ahayd ee lagu qaraabanayay nimankan xogta iyo wax walba u fudeydinayayna iyagana gacanta lagu hayaa dhinaca kale tolaamaha amniga gobolka Bari waxay shaaciyeen inay 100 xubnood ay gacanta ku hayaan oo howlgalkan intuu bilowday 100 xubnood ay qabteen 100kaasi xubnood baaritaana ku socda weli ma aysan kala cadaanin sida ay kooxaha ula shaqeeyaan inta la shaqeysa iyo inta aan la shaqeynin baaritaana iyadana ku socda howlgalkan marka buuraha ka socda magaalooyinkana waa ka socda oo laamaha oo xil saaran ilaalinta gudaha magaalada waxay wadaan baaritaano iyo suuq qabasho ninka buurta jooga nin baa raashinka u diri oo kaarka u diri oo cuntada u diri oo biyaha u diri oo wuxuu raba u diri oo daawada u diri oo xogta dawladda bixiri oo xogta shacabka bixiri oo dhaqaalaha uga soo qaadaya gudaha ilaa dadka magaalada jooga xataa dhaqaalaha laga qaadayo xog looga qaadaa hadii kale gurigaada waa la qarxin baa la dhihi ninkii diida wuxuu ka cabsan in dukaankiisa la qarxiyo marka cabsi bay inta badan yay dadku wax ku bixiyaan marka nin baa magaalada u joogay kii magaalada u joogay ayay laamaha amnigu marka iyagana ciribtirkeeda ka mid tahay oo soo qabashadooda iyo howlgallo laga wadaayo ay ku jiraan howlgalladan marka si habsami leh ayay u socdaan dhinaca kaleeto waxay maanta howlgallo xoogan ay ka socdaan duleedka degmada Qandala oo kooxdan waayihii dambaba hoy iyo gabaad lagaga soo duulo shacabka reer Puntland ay ka dhigteen Qandala waxay ku taalaa dhul buuraley ah togag ah kooxdana dhulka ay degtay waa dhulka Qandala hoos yimaada weeye degmooyinka waana degmadii ugu horeysay oo kooxdu 2016kii ay qabsadeen oo ay la wareegeen marka howlgallo xoogan baa ka socda gudoomiyaha degmada Qandala iyo kolonyo ciidan ah ama dhan guutooyin ciidamada Puntland oo hogaaminayo ayaa maanta howlgallo xoogan ka sameeyay toga Bayxaani oo run ahaantii tog aad iyo aad dhul jiqaho waxa weeye kooxdana ay saldhigyo ka dhigteen marka dagaaladu marka dhinacyo badan bay ka socdaan buurahan Almiskaad ilaa togogi degmada Qandala ilaa Balidid deegaanadii hoos imaanayay walow laga soo shamiyay oo dhulka laga soo qabtay ciidamadu howlgal ballaaran oo saf ballaaran oo dhinacyo kala duwan ayaa kooxda lagaga wadaa marka si habsami leh u socotaa guulo waaweyn bay ciidamadu gaareen hambalyo ayaa leeyahay waan hambalyeynayna maalinta ka dambaysa ciidamadu talaabo durugsan ayay qaadayaan oo laga sifay dhul waliba aad u weyn baa laga sifaynaya kooxda hal maalin lama nasanayo oo ciidamadu waxaad moodaa biyo socdaba meel walba oo loogu sheego weerar baa lagu sii qaadaya looma nasanayo waqti lama siinayo jaanis kooxda lama siinayo sababtoo jaanis ay isku soo urursadaan ba lama siinayo dagaalkuna de waa saf ballaaran oo hal meel ma aha hadday iskugu keensan lahayn awoodooda hal meel ma aha dhinacyo kala duwan buu dagaalku ka socdaa marka guulo waaweyn bay ciidamadu gaareen hambalyaan leenahay waan bogaadinaynaa guulaystaan leenahay ciidamada geesiyaasha ee Puntland taasi waa mid ah qodobka ugu dambeeyay muhiimka ee aan filayo inaad sugayso dawladda federaalka Soomaaliyeed iyo ciidamadii nabad ilaalinta Soomaaliya u joogay la dagaalanka khawaarijta malaayiinta dollar ku qaadanayay ee magacooda loo yaqaanay ATMIS haddana la bedelay leeydi UNISOM loo bedelay ilaa iyo hadda taageero iyo garab istaag iyo bogaadin midna lagama hayo howlgalka Puntland ay guulaha ka gaadhay waxa yaaba dawladda federaalka ay hadiiba ayba ka aamustay howlgalkan midowga Afrika iyagu ma xasan bay ka amar qaataan sidee lagu aaminayaa howlgalkooda haday xasan ka amar qaataan oo xasan ay amar ka sugayaan sidee lagu aaminayaa sidee deegaan Puntland ay ku imaan doonaan sidee deegaan Jubbaland ay ku tagi doonaan sidee bulshada howlgalka taageersan howlgalka Puntland ay wada taageersan ay hadhow ku aamini doonaan lama aamini doono ciidan xasan uu wata weeye ciidan xasan uu watana ma noqonayaan ciidan dhadhaxaada oo hadhowto kama dhaadhicin doonaan argagixisan Soomaaliya inaga xoreynayna waayaan daro inteeda leg madaxdii dawladda ee 3 sano la soo dhaafay maalin walba geed walba la taagnaa argagixisan la dagaalamayna dhulkaan xoreynayna waa iska kicinayna Soomaaliya amniga Soomaaliya keera lahayd ee wasiirada lahayd ee madaxweyne lahayd ee waxa weeye taliyaal lahayd howlgalka Puntland ay wado door kuma laha kama hadlaan waxa weeye waa loo aamusay dhamaantood iyagoo xasan tixgelinaya ayay macal wasiiradii howlgalka ka hadlilayeen warsoo ayaan daro inteeda leegma
warsoo ceeb inteeda leeg soo maaha warsoo qarankeenii sabab u noqon mayso dowlad federaale la wada lahaa in lagu kala tago maanta taasay taagantahay nimankii la dhahayay somalilan ayaa la raadinayay oo maqnaa haddii puntland intay howlgalkeedaa soo dhammaystirato ay isku soo noqoto argagixisada ajaanibta iska dulqaado oo la ysku soo laabto waxaa khatara inay dhahaan reer puntland annagu goonigoosa dowlad madax bannaan baa nahay hadhow ma lala yaabaya haddii dowladdii federaalka ay sidan noqotay oo ay noqotay mid un qabiil u adeegaysa qoys u adeegaysa galmudug iyo shabeellada dhexe bese u adeegaysa labadaa bese taageersan dagaalka ay kula jiraan sideen wax lagu wada lahaanaya suurtagal noqon mayso hadday dhowdahay odayaasha dhaqanka ee hawiye fariintaa ha layga gaarsiiyo odayaasha dhaqanka hawiye culimaudiinka hawiye ganacsatada hawiye arrintaa ha layga gaarsiiyo meesha ay wax ka dhaqaaqi lahaday waa xasan amisom amar haddii la siin lahaa oo xasan bay tixgelinayaane amar la siin lahaa way hadli lahaayeen oo diyaaradahooday kicin lahaayeen oo daawadan xerada xalana dhex fadhidiyo xeryahooda dhex buuxday qaadi lahaayeen oo hubkan tirada badan ee iska yaallay qaadi lahaayeen oo puntland bay garab siin lahaayeen xasan bay tixgelinayaane arrintaa iga gaarsiiya isimada dhaqankii hawiye ganacsatada hawiye waxgaradka hawiye culimaudiinka hawiye arrintaa iga gaarsiiya howlgalka puntland hadday dhowdahaye ha la taageero xasan ha lagu khasbo inuu taageero xasan ha caddeeyo sababta uu u taageeri leeyahay howlgalka la dagaalanka argagixisada caalamiga sababta uu u hagardaamaynayo ee xataa amisomtii uu amar usiiye u yidhi kama hadli kartaan ma bogaadin kartaan gacan kama siin kartaan puntland uu u yidhi ha caddeeyo haddii wax la wada leeyahay weye haddaan wax la wada lahayn oo maanta ay sidaa ay hawshu tahayna dee puntland berinta goonigoosad bay ku dhawaaqi annaguna waan taageeraynaa wayna isku filaanaysaa irintaasayna ka bixi oo dowlad madax bannaan bay noqoni ninkii markaa hadhowto ka faa'iidaya la arki doonaa oo faa'iide ku qabay federaal ninkii faa'iide ku qabay ayaa la arki doonaa hadday sidaa noqotay weye hadday dhowdahay ha la qabto ummadda soomaaliyeed ee muuqaalkan uu soo gaadhow aad iyo aad wax looga xumaado weeye arrintaa ha la cambaareeyo oo madaxweynuhu ha ka hadlo arrintaas oo waxa weeye ha taageero hubkan tirada badan ee la bixiyey ha dhiibo iyo ha kala waxa weye maxaa isku xidhay saciid deni iyo la dagaalan khawaarij maxaa isku xidhay khilaafka isaga iyo deni udhexeeya iyo la dagaalanka khawaarijta maxaa isku xidhay khawaarijtu soo ma aha dagaal caalamiya maaha soo dagaalkii xasan shalay lahaa ummadda soomaaliyeed oo kaca cid walba oo ka aragdido ee farmaajo xataa uu hambalyeynay ee u lahaa guulaha ciidamadu ay gaadheen waan hambalyeynaynaa maxaa isku xidhay siyaasad qof aad isku haysaan iyo la dagaalan khawaarij maxaa isku xidhay ayaan daro inteeda leeg weye dagaalkaa waa la siyaasadeeyey xasanna waa siyaasadeeyey haddii uu dagaalkaa siyaasadeeyeyna dagaalo badanna waa la siyaasadayn doonaa puntlandna waa isku tashan doonaa federaalkana cidda wax ku qabta waxa weye wax ku qabta ayadaa hadhowta ka maali doonto waa lagu kala tegi haddaad isleedihiin muqdisho anaguna anfacayso muqdisho basa naanfacaysa hadhowta ay tahay dekedana waa la leeyahay dhul iniga weyn oo amnigana waa la haystaa dhibaatana ma keenayso wax dhibana kuma qabno in xasan sidaa uu isagu u siyaasadeeyey annaguna beritaan u siyaasadayno oo aan deegaanadanada ee puntland ay isku tashato oo iyadu ay dhinac marto oo dowlad madax bannaan noqoto wayna ku socotaayo xasan baa halkaa dhigay in la kala tago oo maanta maamul goboleedyadii ay kala tagaan oo nin walba dowlad madax bannaan uu sheegto xasan baa sameeyey hadday laakiin dhowday qabashay leedahay ha la qabto